Baruujeed waa mid ka mid ah deegaanada sanad iyo barkoor laga xoreeyay kooxda khawaarijta Al-Shabaab waxaana tan iyo markii ay nacawda dowladnimadu gaartay Baruujeed laga hirgeliyay adeegyo muhiim u ah danta guud waxaana maanta Baruujeed laga dhagax dhigay iskuul casri ah mid ka hirgelintiisa ka kaashanayaan wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed dadka ku nool deegaanka Baruujeed iyo deegaanada kale ee ku tirsan Ceelbuur ayaa baahi weyn u qabay hirgelinta iskuulkan Mubaarak Diini oo ka mid ah howlwadeenada wasaaradda waxbarashada Galmudug ayaa sheegay in iskuulkan uu ibafur u yahay iskuulo kale oo wasaaraddu qorsheynayso inay ka hirgeliso deegaanada hoostaga degmada Ceelbuur ee xorta ah mashruucan GPE-ga muddo dheer uu soo socday maanta waxay maraysaa in la dhagax dhigo iskuulkan wuxuu ka mid yahay iskuulada baahiyaha deegaanada ay ka jiraan Baruujeedna waa ognahay oo deegaan difaaceedka waxa waaye ugu xageeya mudan in intaan iyo in ka badanba laga qabto mashruucan GPE-ga waxa la yiraahdaa STG qaybtan STG-ga waxa lagu talagalay in lagu balaariyo iskuulada hore u dhisnaa baahiyaha ka jiro iskuulada cusub iyo deegaanada fogfogna laga asaaso iskuulo cusub iyo nidaamka waxbarashada aasaasiga qaar ka mid ah dadka deegaanka Baruujeed ayaa ka mahad celiyay dhagax dhigan waxa ayna sheegeen in iskuulkan uu yahay mid ay baahi weyn u qabeen isla markaana ay ka faa'iideysan doonaan ay weyn ka qaadan doonaan in waxbarashada deegaanka waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay yiraahdo dhismaha iskuulka waa qayb maanta si naloo sheegay 2 qol iyo 2 musqulood ayaa halka laga dhisayaa waxaan rajaynaynaa kuma filla dhismaha maxaa la yiraahdaa hadda la dhisayo oo ciyaalka kuma filla ardada maxaa la yiraahdaa meesha wax ka barato waxaan rajaynaynaa inay heli doonaan dhismayaal intaas ka balaaran oo qolal ku filan arabna in naloo bilaabo naloo dhameystiro wixii hadda naloo soo gartana waxaan rabnaa in naloo dhiso si degdeg ah nala kugu dhiso oo 2 qol iyo 2 musqulood ilaa aan islahayn ilaa 5 qol ilaa 10 musqulood aad heli doontaan waxaan rabnaa marka adduunka taaba lagu gaaraa wixii haddeer aan helno naloo soo qorsheeyay dhinaca aad ka wadin ma dhinaca kale uga dhigi doonaa ka soo waxbarashada nala soo gaarsiiyay iyo waa ka mahad celinaynaa midda horena soo gaarto waa ka mahad celinaynaa midda maanta dhagax dhiga waa ka mahad celinaynaa gudoomiye ku-xigeenka degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud Maxamuud Ciise Abtidoon ayaa sheegay in iskuulkan uu yahay mid wax badan u taraya bulshada deegaanka Baruujeed iyo deegaanada kale ee ku tirsan waxa uu wasaaradda kaga mahad celiyay dhagax dhiga iskuulkan maanta Baruujeed waxaan ku nimid deegaankan iskoolkan maanta laga dhagax dhigayo meesha la yiraahdo Baruujeed ma ahan dhagax dhigiisu wax waqti fudud ku soo baxay hawl culus laga soo maray waqti badan la soo galishay waa in la ilaaliyo horta sida ukuntii loo ilaaliyo qofka shakhsiga xoolaha u xaroodo soo wardiyay waa in iskoolkan loo wardiyay oo la dhin waa xoolo dan guude oo wiil daaqad uu kala bixin mid albaab uu kala bixin mid uu dhagax ku dhufan ee wax la wada leeyahay la wardiyay inay noqoto taas markaan ka soo tago deegaanka Baruujeed oo hoostaga degmada Ceelbuur deegaanadii cadawga laga xoreeyay ka mid yahay aad ay wax u mudeen dawladda Galmudug oo codar uu sheegayna madaxweynaha dawladda Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo wasiiradiis waxaan leenahay mudane madaxweyne meeshaan waxay rabtaa il gooni in lagu fiiriyo wasaaradda waxbarashada hidaayad tacliinta sare Galmudug waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsan tahay maadaama wasaaraddii koobaad oo baahiyaha deegaanada Ceelbuur hoostaga xorta ka soo jawaabtay ay noqoto waxaan leenahay wasaaradaha kale inay ku soo daysadaan Abdinuur Ciise Qalame